Bismillaahi Raxmaani Raxiim dad halkaan naga socotaan oo bartay tirtirana calasta 24 Boosti taariikhda maanta 8 bishii 6 2022 maalin Arbaca wararka caalamka kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah gaar ahaan xiisada kala soo Ukraine Russia magaalada Mariupol ee istiraatiijiga ah ee muddada baan ka socda dagaalka lagu hoobtay waxaa la arkayaa magaalada ay u soo daday dowladda Russia khubaro ku xeel dheer oo injineer ah sidii magaalada u kala garan lahaayeen haradig hubka ku haray iyo goobihii burburayba halkaas oo injineerada wataan qalabka noocooda casriga kooda ugu dambeeyayba daawadayaal waxaa la arkayaa magaalada bartamaheeda ay ka gurayaan dhismayaashii ku burburay iyo haradigii kaleba daawadayaal wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Russia Sergey Lavrov ayaa ku sugan dalka Turkiga wuxuuna la yeeshay dhigiisa dalka Turkiga wadahadalo ku saabsan xaaladaha iyo colaadaha ka aloosan Liibiya iyo Syria iyo Ukraine sidoo kale waxaa la isku soo hadal qaaday shirka intii socday cunto yarida ka jira caalamka Turkiguna wuxuu sheegay in ay u baahan yihiin si loo fasaxin lahaa qamadiga iyo waxyaalaha kale oo laga sameeyay saliidda daawadayaal waxaa jira in dowladda isku dayeysay Ukraine inay ka dhoofiso dekedaha ku yaala badda madow raashin aad u fara badan laakiin arrinka waxaa ka hor yimid madaxweynaha dowladda Russia wuxuuna sheegay in arrintaas isku dayaan inay dekedaha dhulkaas lala simin doono dhulka dekedaha ku yaala badda madow ee raashinku hadda u yaalo wuxuuna sheegay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Russia arrinka waxa kaliya oo lagu hubin karaa sidoo sheegay madaxweynaha dowladda Russia warqad ka soo baxday haddii ay isku dayaan Ukrainiintu inay dhoofiyaan raashinkaas dhulka ayaan la simin doonaa dekedahaas laakiin waxaan ogolaan doonaa sida anagu aan doonayno in loo dhoofiyo raashinkaas daawadayaal sidoo kale gobolka Donbass ee Luhansk waxaa ka socda dagaal aad u fara badan sida u jeedaanba wasiirka gaashaandhigga dowladda Russia wuxuu sheegay in dagaalka halka ka socda ay 90% gobolka la wareegeen gaar ahaan magaalada uu dagaalka baan ka socday gobolka Luhansk magaalada hadda la isku hor fadhiyo ayaa ciidamada Ruushka 97% la wareegeen gacanka Ruushka waxay ku soo daabaleen ciidamo aad u fara badan gobolada ay qabsadeen markay ka baxayaan halka ciidamo kale ay uga soo tagaan oo cusub daawadayaal dagaalka weji kale ayuu yeeshay madaxweynaha dowladda Ukraine oo hadlayay maanta ayaa afka furtay wuxuuna sheegay in ciidamada Ruushka ay ka tiri badan yihiin ciidankooda kana hub badan yihiin laakiin wuxuu sheegay xeelad walba ay adeegsan karaan inay adeegsan doonaan ciidamada Ukrainiintu waxaan ay la hadlama ma laha daawadayaal dagaalku oo sii socda wuxuuna sii gelayaa maalintii 105aad ilaa iyo haddana dowladda Mareykanku waxa ay ku shishiday dabkii hore shidnaa mid kale ayay ku sii dadhay oo baasiin ayay ku dadhay waxaa arrinkii ka sii daba qaatay dowladda Ingiriiska waxaan daba joognaa arrinka ahaa in gantaalo loo diray hub halkaas xaaladdu way ka sii daraysaa laakiin dowladda Ruushka waxay la soo baxday awood ciidan awood military iyo awood dhaqaalaba iyo mid xagga hubka iyo saanada iyo shidaalka ahba waxa ilaa hadda awoodda Ruushka lala dhigana waa la laayahay Ukrainiinta afka ay qeylo ku shubteen diyaaradaha qumaad u kacay la arkayaa maantay oo casri noocooda ugu dambeeyay kuwaas oo la yiraahdo MH135 ee dowladda Ruushka keentay goobaha dagaalka kuwaas oo afuufaya gantaalo aan weli hore loo arag meesha ku dhacaan dadka wadnuhu istaagayo sambabadan ay soo dhacayaan diyaaradahan ayaa la arkayaa qumaad u kacay goobahay fidiyeen ayuu halkaas duqeymo baan u geystay meelaha cadawga fidiyay ciidamada Ukrainiinta waase ayagu hadalka u dhigeen daawadayaal xaaladdu ma sahlana dagaalku sii socdaa waxaa la arkayaa hub casriya diyaarada casriya inay la soo baxeen dowladda Ruushka iyo ciidan nooca ugu dambeeyay oo haysta tababar nooca ugu dambeeyayba daawadayaal warka ugu dambeeyay ayaa nagala socotaan barta YouTube ku leenahay calasta 24 Boosti hadda jeer waxaan isoo gudbinaa warar ku saleysan xaqiiqda gaar ahaan xiisada ka aloosan Ukraine iyo Russia waxaan nagala socotaan barta YouTube ku leenahay daawadayaal wararka kusoo kordha dagaalka halka ka socda hadda jeer waan isoo gudbin doonaa sababtoo dagaalkan aad ayuu muhiim ugu yahay dhulkan ku sugannahay iyo caalamkaba sababtoo ah dagaalkan uu sii socdo xaaladdu waa isbedelin kadhaa waxaan isku bedelin kadhaa in isku adeegsado hubka